Ologiga waxaan ka hadlaynaa waxa loo yaqaano maanta amenorrhea ereyga maxaa waaye waa absence ereyga waxaa leenahay waa absent marka waxaan leenahay amenorrhea waxaa leenahay waa absence menorrhea waxaa leenahay waa cycle soo ma absence of the cycle ayaan ka hadlaynaa oo topic muhiim ah oo ah topic ugu muhiimsan marka laga hadlayo ecologiga ardayda qaar waxaa laga yaabaa inuu arkaan inuu adag yahay marka ma adko haddii aad fahanto waa ma dhibano markii laga hadlayo mataqaanaa amenorrhea waxay leedahay definition and waxay leedahay typeskeeda waxaan leenahay inaan u qaybino aan dhahno waa physiological and pathological pathological-kan aan u qaybinayna waxa loo yaqaano primary and secondary ama waxaa dhihi kartaaba sida iska qaado primary and secondary saas ala badan loo soo gaabiya primary and secondary amenorrhea ereyga primary muxuu yahay secondary muxuu yahay ereyga primary waxaa leenahay dictore weligeed cycle kama imaanin secondary waxaa leenahay cycle-ka ayaa imaaday oo haddana istaagay soo ma secondary ama primary waxaa leenahay weligeed cycle kama imaanin marka waxaa leenahay waa absence of the cycle waxay ka cabanaysaa hooyada ku keenayso ama iyada ku imaanayso ka cabanayso inuu cycle ka imaanin hooyada wuxuu gabadheed maxaa ku dhacay gabadhii ka yaraa cycle waa ka imaadeen 18 sano jir waa ama 16 jir waa wax cycle ama sama waa complaint-keeda oo cycle ugu horreeyay laakiin secondary waxaa la waxay ku leeyahay doctor cycle-ka uu fiicnaa soo fiican yahay ayuu uga istaagay marka mifahant farq u dhaxeeya secondary uu istaagay kanne weligeed ma imaan laakiin labada waxaa ka wada dhaxeeyo inuu maqan yahay the absence of the menstruation labada waxaa lagu yaqaan waa amenorrhea midna intuu yimid ku istaagay midna weligeed uma imaanin marka ereyga haddii lagu weydiiyo what is the primary amenorrhea waxaa leedahay waa absence of menstruation in patient who has never menstruated before mujeda weligeed cycle kama leedahay haddana cycle ka maqan weligeedna kama imaanin menstruation kama imaanin marka ma leedahay age mucayyana mase haddii gabar markay dhalataba ay 5 sano gaartaba waxaa leenahay la no age leedahay age muxuu yahay age waxay leedahay ama 14 ama 16 doctor maxay kula duwan 14 waxaana ka maqan absence of development of the secondary sexual characteristics ma laha waxay kala luqaan gaarka ma laha 14 sano jirta wixii kala ma laha sida breastigi pubic hair axilla some of the hierarchy tintii u soo bixin pubic hierarchy breast ma laha soo waxa muhiim inuu ku soo baxo breast soo waxaan absence of secondary sexual ma laha waana 14 sano jir waxayna ka caawinaysaa cycle kilo soo waxaan this waa primary amenorrhea secondary 16 sano goorma waay 16 sano waxaan sugaynaa haddii la ahayd secondary sexual hadii la nifaatay yani hooyada gabadha ay 14 sano jir tahay ayna leedahay secondary sexual characteristic ay leedahay ma dhaheen waa amenorrhea ilaa ka gaarayso 16 laakiin 16 hadii gaarto waxaan leenahay regardless hal ahaata ama aysan lahaanin secondary sexual hal ahaata ama aysan lahaanin waxaan leenahay waa amenorrhea mifahant amenorrhea goorana 14 sano jir aan lahayn secondary sexual character waa taqaan secondary waa taqaan sama voice-kii iyo wixii sama oo female lagu garanay ma lahan خلاص waxaan leenahay waa gabadha ayta waxaan waa primary amenorrhea ama waxaan leenahay yani waa 16 sano jir regardless of halaha ata ma islahaanin mataqaana secondary sexual characteristics halaha min socota marka waxaan this is waa primary secondary definition muxuu yahay secondary amenorrhea the absence of the menstruation for 3 months or for 3 normal cycle if the previous of menses were regular or the 6 months of where the irregular were the menstruation irregular. This is the types of amenorrhea. And this is primary amenorrhea and secondary amenorrhea. The primary amenorrhea, the absence of menstruation. Secondary and also absence of menstruation. ترى على سؤال علينا هاي تخبر على before يعني علينا هاي never menstruated سوا يعني علينا هاي واحد mataqaana yani weligeed ma dhig kama imaan tan laakiin calada uu kiimid uu ku istaagay dhiig regular waxa bil kasta imaanay 3 mar isku xitama imaan calada waa absence waa secondary ama irregular ma haysto wallahi kala marka ma ii toosnay 2 bil maqnaana bilo imaan taas waxa leenahay 6 bil sugay 6 bil kadib waxa leenahay this waa secondary hadii irregular ahayd hadii laakiin regular ahayd 3 months ay u filan ama 3 cycle doctor marka intaan gudaha u gelin primary iyo secondary intaan gudaha u gelin waxa rabaa ku fahansiyo physiology-ga hore aan soo qaadib u laabo physiology-ga markii laga hadlaayo yani markii laga hadlayo physiology-ga wuxuu ii sheegaa inaan leenahay 4 compartment yani 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 yani si uu imaado normal cycle-ka waxaa laga maarmaan ah in la helo 4 shay number 1 compartment kooda waxaan waa hoos ka bilow uterus waa uterus jira soo uterus ovary number 2 number 3 inuu jiro anterior pituitary gland number 4 waxaa leenahay waa hypothalamus afraas waxa weyn leedahay hypothalamus kan ka bilaabeena wuxuu noo soo deena hormoon loo yaqaano gonadotropin releasing hormone oo ku howlgeli doono anterior pituitary gland
the anterior pituitary gland wuxuu soo deynaa release of FSH and LH, and this FSH and LH waxay ka howlgelaysaa in the ovary, and the ovary produce the estrogen and progesterone, and then waxay ka howlgelaysaa in the uterus. So I have 4 compartments: hypothalamus, anterior pituitary gland, ovary, and uterus. If absent afartaas mid kamid a waxaa leeyahay this waa amenorrhea. يعني waa inay joogtaa يعني hypothalamus to release gonadotropin and release hormone. If any action or any problem that affect the hypothalamus ka waxay saameynaysaa cycle. Anterior pituitary gland, if pituitary gland haduu soo deyi karin FSH and LH means will be يعني waxaa dhacay absence of the cycle. wuxuu soo daayay FSH LH. FSH will act into correlate in the ovary, and ovary waa inay soo deysaa estrogen and progesterone. Estrogen waa inay ka howlgalo the uterus. So u dhaco normal cycle, I must have normal uterus, normal or function of the ovary, and anterior pituitary gland and hypothalamus. 4 compartment. If I have 4 compartment, in the normal cycle will be occur. Okay, so mi fahamtay, this waxaa leeyahay waa 4 compartment. Hypothalamus waa inay soo deysaa gonadotropin hormone. Any problem or wax kasta oo saameynaya hypothalamus will be affected the menstruation. Every waxaa leeyahay anterior pituitary gland saameynaya. mi fahamtay doctor, yani hypothalamus waa inuu i fiican yahay, caafimaad qabo, wixii saameeyay waa iga saameynaya cycle. anterior pituitary gland waa inuu shaqeynaa, hadduu shaqey waayo shaqadaanu gaba FSH LH la weynaa. haddii la waayo ama haddii joogto ovary la waayo ayadana waa dhib. afarta marka loo baahan yahay, hadduu afarta mid kamid a maqan yahay, ovary ma shaqeynayso, shaqada waa istaagi. waxaana waa shaqeynaya uterus la-aan jirta meesha, hooyada cunugan uterus ma hooyo gabadhan uterus dhan ma lahanba, cycle ka imaana meelo ka imaada ma laha. So normal cycle say u dhacaan afarta xabaleed. afarta doo mid kamid a ii qaldan waxaa leenahay waxaa dhacaayo amenorrhea. The absence of the menstruation, we have 2 types: pathological and physiological. The absence of menstruation, I have 2 classes: the pathological and the physiological. The physiological before the puberty, after menopause, during the pregnancy, and during the lactation. This is called the physiological amenorrhea. If patient is before puberty, I will say it's normal. If patient is menopause and complain of the absence of the cycle, I say this is your normal physiological. If patient during the pregnancy complain of the absence of the cycle, I say, oh my God, you are normal. This is normal because during the pregnancy there is no cycle. Why? Because during the pregnancy there is a negative feedback of estrogen. During the pregnancy, estrogen is high. This high estrogen will be a negative feedback into the pituitary gland and in the hypothalamus, and can cause the absence of the cycle. Negative feedback waxay joojinaysaa. Negative feedback soo deynaysaa during the pregnancy. Estrogen progesterone waa high. Estrogen wuxuu aadaa negative feedback wuxuu ku sameyn wuxuu joojinaa FSH in la soo daayo pituitary gland-iga si u dhicin other ovarian cycle. Because hadduu dhaco every ovarian cycle during the pregnancy dhibaato waay. marka waxaa la rabaa inuu intii hooda pregnancy inuu dhicin. During the lactation, why normal physiological? Because during the lactation the prolactin is very very high, and this very high of prolactin will be the effect of anti-estrogen. هو عكسه ku yahay, waa anti ku yahay female ka badan. waxaa la prolactin waa cadawga hooyada, maxaa yeelay wuxuu joojinayaa shaqada estrogenka and progesterone. mila socota doctor? And why before the puberty absence of the cycle? Because the ovary are not functioning. And after menopause, because the ovary are stop their function. shaqada waa dhamaatay. And during the estrogen high and during the lactation. This waxaa lagu yaqaanaa, this is waxaa leena waa physiological or the type of absence of the menstruation. waxaa leena waa physiological and pathological. Okay, the pathological I have 2 types: secondary and primary amenorrhea. The absence of the menstruation waxaa u qaybina 2: physiological and pathological. Pathological fahmi before the puberty, after menopause, during the pregnancy, during the lactation. And pathological waxaa leenahay waa primary and secondary. Secondary maxaa waaye cycle ka jooga waa istaagay. Primary gana weligeed ma imaanin. waa taas soo sharxeen. The primary amenorrhea also waxaa u qaybina 2 types. It's a true primary amenorrhea or false amenorrhea. False or cryptomenoria or false
amenorrhea. maxaa laga wadaa false amenorrhea? Means normal pathway. The hypothalamus is good, the pituitary gland is good, ovary is normal functioning, and uterus are present, and no any congenital malformation or no any problem uterus. Like where is the problem in the false? There is outflow obstruction. There is outflow obstruction. Even wax soo baxay ma lahan. Yaxay soo bixi la outflow obstruction. Wax dhig soo baxay ma lahan. But the true primary amenorrhea will be problem 4 of them. Afarta mid kamid ah. Or hypothalamus, or pituitary gland, or the ovary, or the uterus. Maybe absent of the uterus. So if يعني هذا problem كجي afartaas aan soo sheegnay mid kamid ah xalina waa true primary amenorrhea. Laakiin afarta mid kamid ah ahaan waxa loo yaqaan waa outflow obstruction, waxa loo yaqaan cryptomenoria. Bila socota. This is difficult, not difficult. There is two type of abnormal, two type of amenorrhea, physiological and pathological. Physiological before puberty, after menopause, during the pregnancy, during the lactation because the prolactin is very high, and the prolactin عدو كي هاي female ka. prolactin وانتي استروجين and progesterone. يعني to stop ذا متقانا عدوجينا سماها متقانا إنه يعني ovulation كي سما هي during the pregnancy because during the pregnancy على هاي the estrogen is very high, and this estrogen very high will be make negative feedback of pituitary gland and hypothalamus to stop يعني sodium FSH and LH and to stop the ovulation or to stop the follicular phase. And before puberty, because before puberty the ovary are non-functioning. After menopause the ovary to stop. This is physiological and pathological. There are two types of pathological: primary amenorrhea and secondary amenorrhea. Primary and secondary. Primary and secondary. Primary, there are two types. Is true primary amenorrhea or false amenorrhea. False or cryptomenoria and false amenorrhea. Now, maanta marka waxaan khali doonaa only waxaan qabanaynaa primary amenorrhea. Primary amenorrhea dhamka ma khali doonaa halkee baan ka khali doonaa qaybta hinista oo loo yaqaano cryptomenoria ama false amenorrhea ayaan ka hadlaynaa. Biri waxaan khali doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo tomorrow the true primary amenorrhea. Maanta ku xigta next day waxaan khali doonaa secondary amenorrhea. Laakiin maanta waxaan khali only the cryptomenoria and false amenorrhea. Soo raac. What is the cryptomenoria or what is the false amenorrhea? The definition: the occurrence of the menstrual symptom without external bleeding. The menstrual blood failed to come out. The menstrual blood failed to come out from the genital tract due to obstruction in the outflow passage. يعني فهمت؟ يعني waxa dhacayo menstrualka uu dhaca maxaa yeelay hypothalamuski iyo pituitary gland iyo ovary iyo uterus afartii adhihina muhiimka ah way shaqeynayaan. Laakiin waxa dhacay failure waxa ku dhacay in wabigii oo banaan soo baxso wabigii ayaa meel ka baxo weynaa wabigii ayaa la hareereeyay meel oo ka baxa male intee ka baxa meel alla intee ka baxa meel alla meel oo ka baxa male ifaan adi laakiin waa nool yahay waa caafimaad qaba waa shaqeena marka waxa leenahay يعني waxaan leenahay the menstrual blood waxaan leenahay waa fail to come out from the genital tract due to obstruction in the outflow passage. يعني meel ka soo baxa malaha there is no outflow passage. So waxaa loo yaqaanaa outflow tract obstruction. Outflow tract obstruction or called false amenorrhea. What is the etiology of what is the etiology of the false amenorrhea or what is the etiology of cryptomenoria? The most common cause imperforated hymen. Imperforated hymen. Number 2, transfer vaginal septum. Number 3, vaginal aplasia. There is no vaginal canal. And 4, the congenital cervical atresia. Congenital cervical atresia. There are 4 etiologies. The most common etiology is imperforated hymen. Imperforated hymen
transfer vaginal septum يعني transfer vaginal waxa derbi way oo sameysmay oo vaginal xiraay transfer vaginal septum iyo vaginal aplasia means what we mean vaginal aplasia to failure to mataqaana in la sameeyo kanaalkii oo loo yaqaan vaginal kanaalkii ayaasan jirin yani waxa lagu fashilmo inuu sameysmo vaginal canal there is no vaginal canal waxa loo yaqaan markaa vaginal aplasia sidoo waxaan leenahay congenital cervical atresia is difficult no difficult what is the cryptomenorrhea what type of primary amenorrhea waxaa jiro outflow obstruction shaqadii waa shaqeynayaan hypothalamus kibidi waxna waa shaqeynaa laakiin meel wax soo baxaan ma laha imperforated hymen the most common cause ninka ugu badan maxaa imperforated maxaa laga wadaa imperforated yani ma furmin hymenki ayaa xiran hymenku waxaa laga wadaa duleel lahaado dhiig ka soo baxo duleel male meel dhiig ka soo baxa male marka waxaa laga waa imperforated hymen dhiig meel ka soo baxa meesha fikradii xiran oo adag oo wax ka soo baxay male waa arki doona sawiradeeda number 2 waxaan ku bilaabeynaa ugu muhiimsan kulligood daawadooda waa isku mid kulligood daawadooda waa surgical waa in la furaa kulligood waa surgical treatment imperforated hymen waxa weyn hymen ku furaa transfer vaginal septum waa inaan derbigaas aan jeexa vaginal aplasia waa inaan u sameeyo tubo meesha vaginaha in loo sameeyo congenital cervical atresia waa inaan mi fahanti wax dhan waa surgical oo daawadooda waa in laga furaa meesha marka number 2 waa ka ugu muhiimsan waxaa loo yaqaanaa imperforated maan ku qor imperforated hymen ka hadleena the imperforated hymen the mostly waxaan leenahay yani female-ka waxaan leenahay waa normal secondary sexual characteristics the normal secondary sexual characteristics yeah, what we mean the patient is normal secondary good breast pubic hair and hair in the axilla this is every normal this is a normal why because the hypothalamus waa shaqeena pituitary gland ovary every is normal where is the problem waxaan waa outflow oo ka soo baxay estrogen waa leeyahay there is estrogen oo shaqeenayo oo female ka dhigaya gabadha sama way qaan gaar already waxaan leeyahay female with normal sexual characteristic complaint primary amenorrhea number 2 waxay ku siinaysaa history of cyclical abdominal pain يعني waxaan ku leeyahay every month waxay imaanaya xanuun abdominal pain bil kasta waxay xanuun beeran dareema maxaa yeelay bil kasta waxa dhacayo dhiigiya imaanayo laakiin meel soo baxa malaha markaas xanuujinaa marka waxay ku siinaysaa history ah cyclical abdominal pain patient may be complain of urinary symptoms maxaa kamid ah dysuria kamid ah retention of urine sabab inay dysuria inay qofkii ma taqaanaa kaadida gubayso ama urine retention maxaa yeelay waxa dhaca leenahay waxa dhici karta complication loo yaqaano hematocolpus the hematocolpus waxa waa collection of blood ku aruuray cervix iyo vagina hematocolpus wuxuu sameeyaa pressure symptom of the urine bladder can cause urine retention and can cause dysuria sabab kaadina ku tigeen karta waxa meesha soo riixa compression oo sameeyaa hematocolpus waxa leeyahay waa collection of blood in the vagina and the cervix and can cause compression of the bladder and can cause waxa la dhahayo mataqaana urine retention and dysuria sidoo kale wuxuu keeni karaa loo yaqaano abdominal swelling maxaa yeelay dhiiga every month maxay wana cycle aruura bil kasta dhiiga isku aruurayo sababta kor sida dhacdo kale case oo gabar aabaheed oo dila oo saakna loo keenay oo leeyahay gabadha uur leedahay waa dila maxay markii la baargo uur ma lahan laakiin waxa la arkay in gabadha aan dhiig ka imaanaynin ba oo dhiiga aruura bil kasta aruura caloosh ay uterus oo soo bararay maxay yeelay uterus waxa dhiig badan meesha galay ifaan adiga laakiin gabadha waxay ahayd markii la baaray imperforated hymen keedo xiran yahay qab waayo ma u dhiig soo baxo laa hadna aabaheed wuxuu gabadha uur ay qaado waa laga wareegsaday ma fahad marka waxaa leenahay this was symptoms ay kula imaanayso abdominal examination waxaa ka fiirinaysaa waxay leedahay like tumor yani dull percussion marka sameeyay waa dull impercussion are found in lower abdominal and local examination as you know markay gabadha tahay virgin there is no BV but I will by inspection waxaan arkay the bluish and bulging of the hymen is seen the bluish يعني waxaan qoray blue maxay yeelay meeshii يعني collection of blood maxaan qoray meeshii blue soo the bluish and bulging in hymen ku arkayso oo soo barara soo this is wakana this waxaan leenahay waa the wakana wida waxaan leenahay wakana
this is hymen, this waxaa leenahay waa yani waa hymenkii soo ma, this waxaa leenahay waa vagina soo ma, this waxaa leenahay waa vagina, kana waxaa ku dhex jira waa hymenkii. Hymenka waxaa leenahay waa plush, tisamida waa plush membrane. Look this picture, look this picture, the plush, look please, اسمعوا فيري, the plush and bulging membrane كده waa soo buuraya meesha maxaa dhiiga soo riixooyba bila socotaa. marka waxaa leenahay this is waxaa leenahay waa examination symptomka kula imaanayso examination ka u sameynaysid. Complicationska ilaada maxay tahay? The complicationska, the most complication is hematometra. Hematometra means the collection of blood in the uterus, يعني dhiig ka urura uteruski, and also hematosalpinx. What we mean hematosalpinx? The hematosalpinx we mean the collection of blood in the fallopian tube and can cause adhesion. And this is the blood collection joogo in the fallopian tube can cause the adhesion and can cause infertility. So if the patient imperforated hymen haddaan hore laga daaweynin waxay keeni kartaa infertility in later on in life. Okay, because the hematosalpinx, the blood collection in the fallopian tube can cause adhesion in the fallopian tube and waxay joojinaysaa laana fallopian tube waxay qabanaysaa inay soo qaado ovumkii iyo inuu sperm soo dhex maro kadibna uu ku dhaco fertilization inuu ku dhaco fallopian tube. fallopian tube haduu xiran maxaa dhacaya markii خلاص waxaan infertility noqonaysa khatar waa marka hadaan gabadha xiloo laga daaway. This is the picture of the complication of cryptomenorrhea. Number 2 waa kana. Number 2 waxaa leenahay the collection of blood, collection of blood in the uterus. So waxaa loo yaqaanaa hematometra. Hematometra jida yani waxaa leenahay collection of the waxaa leenahay waa kana. This waxaa leenahay waa collection of the blood in uterus. And sidoo kale waxaa leenahay this is waxaa leenahay waa collection waxaa leenahay inuu ku dhaco iyadana sidoo kale in the fallopian tube waxaa loo yaqaanaa waxaa leenahay hematosalpinx. yani waxaa leenahay hematosalpinx, the collection of blood in the fallopian tube, and iyo waxaan leenahay collection in the uterus oo loo yaqaanaa hematometra, iyo collection waxaa leenahay in the vagina and the cervix oo loo yaqaano hematocolpus. jida hematocolpus يعني waxaa leenahay hematocolpus inuu ka ururo cervix vagina, hematocolpus, hematometra and hematosalpinx. What is the treatment of imperforated hymen? Patient waxaa u sameynaa waxaa loo yaqaana general anesthesia and then cruciate incision. Cruciate incision jida yani meesha waa furaysaa cruciate waa arki doona sawirka hadda and cruciate incision and excision of the edges. يعني waxaa qaad edgeska maxay hadii kale hadda oo isku dhig adhesion sameeyaan. So cruciate incision and then I will excision of the edges or I will open the whole hymen. whole hymen afra in center horta dhan bixina meesha bixina and then leave the blood to drain slowly. waxaa isku dayna xoog ku bixin slowly, don't try to push. okay xoog isku day tartiib u soo and then antibiotic, and then give her antibiotic to prevent the infection. Okay. And then I will do certificate. So I will write the certificate. This is ina sameeyay aniga hymenkeedina gabadhan ka jabiyay maxaa yeelay dhakhtar oo hebel ah ayaa waxaa dhacday inuu meesha dhiig ku xirnaa, dhiig ayaa ka furay. waraad qoraysaa waa in loo sameeyay cruciate incision loo sameeyay. This waa kana picture-kii, this waa kana waxaan nahay imperforated hymen meesha soo buurin waa kana waa fure cruciate incision. edgeskan waa ka jargeysaa kadibna kana waa la dhigaysaa waa buuxsaba waxaa laga dhiig inuu ku jiro dhowr bilood iskaga jira meesha waa buuxsaba faraha ka qaaday ha soo buux dhaaf. marka waxaa leenahay this is summary ama symptoms of cryptomenorrhea. waxaa leenahay summary-geeda muxuu yahay? summary-geeda waxaa leenahay inuu hooyo patientiga ay tahay chromosomal number-keeda normal. any patient of imperforated hymen ama transfer vaginal septumkii waxay meesha xiran oo kale israax nooc raba noqdo laakiin waxa muhiim uu kuma saarahna imperforated hymen oo muhiimsan kuwan kale laakiin waa la mid oo kulligood waxay ka wada dhexeeyaan leenahay inay yihiin normal chromosome 46XX. this is female even and gonadal or ovary are normal. the ovary, 2 ovary are normal. The hypothalamus normal. The pituitary gland normal. Normal estrogen.
she has sexual secondary sexual secondary sex characteristics ولا لا او female كي اكتر كيف هتعلم normal gabadhan ma fahanti waxa dama normal kadib waxa leenahay waxa uu sameynaysaa operation kadib waxa ka soo bixinaysaa leenahay mataqaana haduu yahay imperfect hymen waa duleelna dhiiga kusoo daadinaya haduu yahay transference septum waa fure nooc raba noqdo yani haduu jiro vaginal aplasia waa inuu furtaa u sameeysaa canal u sameeysaa vagina fure waxa uu sameeysaa canal jismku waxa leenahay kusoo goynayna maanta qaybteeni koobaad oo haleenay cryptomenoria biri waxa ka hadli doona true primary amenorrhea and secondary amenorrhea